halkan waxa ka bilaabmay saaka oo ay bisha 10 bishii Maarch barnaamijkii shaqo qaran imtixaankii shaqo qaran dufcadiisii afraad ayaa halkan ka furantay oo maxay ahayd imtixaankii saaka u bilaabmay barnaamijkaas oo halku dhigiisa ama fikirkiisa uu lahaa gudoomiye uu lahaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo aad ugu hambalyeynayna barnaamijkaasi oo ahaa fikir wanaagsan runtii oo daayartii gabdha iyo wiilba ay ka faa'iideysteen alxamdulillah aad baan ugu bogaadinaynaa madaxweynaha arrinkaasi halkan waa goobtii Shaqal Jawhar waxa ku galaya maanta maxay haydeen 300 arday guud ahaan gobolka markaan iraaho waxa galaya 1112 arday 741 waa gabdho 470 waxa weeyaan wiilal marka hablaha ayaa badan sanadkan oo ka badan maxay haydeen tartamayaasha imtixaanka guud ahaan waxa galaya 1112 kaasi aad baan yaan maxay haydeen waan u duceynaynaa daayartaasi dhamaan dalka oo dhan gaar ahaan gobolka Awdal insha Allah bidmilaahi kariin inay ka soo baxaan midho fiican oo maxay haydeen dalka iyo dadka iyo diintaba wuxuu taray insha Allah waxaan ku rajaynaynaa insha Allah in ay ka soo bixi doonaan mustaqbal iftiimaya